muuqaalkan waa muuqaal aan jeclaan lahaa inaan daawan lahaa 17 jir 18 jir 19 teenagerka xilligan ha ama 5 sano ka hor inaan daawan lahaa waxaan rajaynayaa inuu noqon doono muuqaalkii kuugu faa'iidada badnaa ee daawatay sanadkan waxaynu maraynaa sanad damaadkii iyo sanad inoo soo galay bilowgii runaantii waxaynu leenahay hididiilooyin iyo ahdaaf iyo waxyaabo badan oo aynu rabno inaynu qabnan loosheen waxyaabahaas waxa ugu muhiimsan ee hormuudka waxa weeyaan in dhaqaale ama income ka fiican income-kii hore ku soo gali jiray sameeyay waxyaabaha mas'uuliyaadka si aan nolosheena Allahumma ta'ala nolol faal aynu helno qaababka kala duwan ee lacagaha lagu sameeyana waxa adduunka hadda aad ugu soo kordhayo aad ugu badan in online lacag laga sameeyo online kaas waxa lagu sameeyaa qaabab kala duwan insha Allah hadii la yiraahdo waxaan kula wadaagi doonaa 3 level ama 3 darajo oo aad kaga sameyn karaysid online ka saddexda darajo hadaba maxay yihiin soo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Warsame waxaan channelkan ku soo gudbinaa personal development sida naftaada iyo noloshaada iyo dhaqaalahaaga aad u horumarin lahayd sidoo kale waxaan marmarka qaar aan Allahumma ta'ala ku soo kordhinaa meelahan tago laakiin main channelkan Allahumma ta'ala ama waxa ugu weyn ee uu channelkan uu wada waxa weey in Allahumma ta'ala aad sidii aad u noolaan lahayd noloshaada sidii aad u horumarin lahayd naftaada iyo noloshaada haddii aad nagu cusub tahay farxad bay noo tahay inaad nagu soo biirtid subscribe de muuqaalkana like saar waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosheena saameeya waxa kamid ah dhaqaalaha inaynu dhaqaale sameeyno run ahaantii waa mas'uuliyad qof kasta saaran sidii uu naftiisa uu xor uga noqon lahaa inuu bilaadan u baahdo ama bilaadan kale uu ku xilnaado adduunka waxa hadda aad u soo badanaya ama aynu arkaynaa de over in adduunkii digital wareeg in adduunkii online wareeg in adduunkii social media ay aad iyo aad Allahumma ta'ala ugu wareeg ruuxantii aniga nolosheeda inteeda badan Allahumma ta'ala ay ku tiirsan tahay inaan dakhligan xagga online ka keenay hadda waxa jira 3 darajo oo online ka lacag uga sameyn kartid darajada koobaad waxa weeyaan in Allahumma ta'ala xirfadahaaga diibsid inaad xirfado baratid skills nolosha hadii aanad xirfad lahayn waxa dhici karta imika hadii aad 17 jir 18 jir meelaha tahay inaanad xirfad lahayn laakiin waqti fara badan aanad haysid hadii waqtigaaga aad maal gelisid oo si fiican u maal gelisid oo xirfadaad ku maal gelisid xirfadahaas ay ku dhali doon lacag marka ugu horeysa aad invest gareynaya marka labaad investment-kii aad naftaada invest gareysay baad iibinaysaa ma jirto hadii lagu yiraahdo online lacag baa si fudud laga sameeynaya iyo waxyaabo yar yar baa si fudud lagu sameeynaya laakiin waxa jirta tabo iyo tusaalooyin aad ku mari kartid أنا العقد وجسمين كرت درجة كوباد العقد وجسمين كرت أونلاين كوحوية إن حرفتها جيبس وحرفتها في بدين ما أنت حرفتها بدن باكرة أو عاد أونلاين كوكيمين كريسيت لكن بالدور كم إذا أيام حاجة نقوله وده جدون قار كم إذا تيم كيجا ما ولا الله إلى الشقية هذين نقطة channel كان هذين نقطة سوشيال ميديا كله هذين نقطة بزنسية إذا الله مستعان أونلاين بزنسية إذا هذين نقطة بلوجين كيجا تيم باكرة الله مستعان إلى الشقية أون بيكري تيم كاس أونلاين بيكو شقية اسمه أرجنا الله مستعان قفل بمشي ساس بوش حرفت كوباد ما أنت فعلي balka adigana ku noqon karaysa wax aad iyo aad u weyn waxa weeyaan inaad baratid sida video editing loo sameeyo video editing waa xirfadaha ugu muhiimsan maanta ee xilligan aynu noolnahay waa xirfad valuable ka dhigi karaysa waxaan maalin dhaweyd daawanay interview yar sameynay kaliya ta Allahumma ta'ala nin dhalinyaro waxa jira shortiska Allahumma ta'ala kaliya ta ka sameeyo wixii uu noloshiisa uu ku sameyn lahaa haddii aad u baahan tahay Allahumma ta'ala inaad video editing baratid waxaad ka baran karaysaa Skillshare waxaad ka baran karaysaa Udemy waxaad ka baran karaysaa Hosubro course buu leeyahay la yiraahdo YouTuber Allahumma ta'ala oo sidii telefoonkaaga iyo computerkaaga baad ugu dhigi karaysaa haddaad doonaysid inaad Soomaali ku baratid haddii kalena meelaha kale waad ka baran karaysaa hadday noqoto video editing hadday noqoto Adobe hadday noqoto Wondershare Filmora marka video editing maanta waa ka muhiimsan yahay inaad jaamacadda tagto haddan ayaan ka yimid waddankeena aan ka soo noqday waxaan ka qayb galay bandhigii Bournemouth Book Fair marka waxaan arkay dhalinyaro badan oo jaamacadka soo dhameeyay oo xirfadahoogii wixii ay soo barteen jaamacadda ay 4 sanadood qaarkood degree yihiin qaarkood master yihiin oo aynan camal hayn oo aynan shaqo hayn oo waxay ka shaqeeyaan habeerateen wixii dhan ay soo barteen baahideediiba suuqa kama jirto ninba ii waramayay aan saaxiib nahay oo u shaqeeya institution weyn oo dawladdu lahayd wuxuu yiri baahida ugu weyn ee Allahumma ta'ala shaqadii ugu fiicneed ee lacagta ugu fiican lagu bixinay waxay shaqaan shahaado la iska dooneen dad badan oo ku tartamay jirin shaqadaas maxay ahayd graphic design maanta waa xirfadaha valuable ka dhigay inaad baratid sidee ba looga loo sameeyaa sidee ba design loo dhisaa sidee ba website-ka Allahumma ta'ala teamkiisa loo design kareeyaa sidee ba wax qurux badan oo indhaha dadka Allahumma ta'ala qabsanay loo maanta waa xirfad horeyna muuqaal baa jiraan uga soo hadlay ee 3 xirfadood oo hadii aad leedahay aan ka wada shaqeynay way jirtay 3 qof baan qaadanay marka waxaan arkay markaan waddankeena tagay dhalinyaro boqolaal iyo kumanaan gaaraya oo aan ma lahayn Allahumma ta'ala xirfadahoogii waxay soo barteen qaar ba project management soo bartay hatta hadday shaqo helaan shaqada ay helayaan wax badan uma sameynayso marka hadii aad maanta taqaanid video editing sida loo sameeyo adiguna waad isticmaali karaysaa oo channel baad furan karaysaa YouTube iyo TikTok iyo Allahumma ta'ala cid kama xigto content creation kuna maanta waa awood ugu dunida korkeega taal marka sidee baad shaqo ku heli karaysaa hadii aad xirfad leedahay waxaad ku heli karaysaa Allahumma ta'ala dadka influencerska bulshada meel badan ay kaga xidhayeen ama dad badan ay ku xidhayeen ayaa la xiriiri kartaa waxaad qoran kartaa muuqaaladadan dheer ban ayaan shorts kaaga soo sameynay oo ku soo yareeynaya dan iyaga dib u la wadaagis marka la wadaagtid u baahan yahay aniga imika team baa jira Allahumma ta'ala ila shaqeeya oo igala shaqeeya Allahumma ta'ala haday noqoto short forms ka iyo haday noqoto long form muuqaalkan dheer
yar YouTube iyo muuqaalada yar yar TikTok iyo Instagram la soo galnay marka hadii aad xirfada barid xirfad valid bala ay ku noqon doontaa oo naftaada iyo noloshaada anfacda income naad ka sameyn karaysid xataa hadii aad full time ku noqon part time ku noqon karaysa income ka soo gal maanta ganacsi ka maarmi karaya ee dunida maanta inuu joogno ma jirto hadii noqoto video editing hadii noqoto video making hadii noqoto Allah musta'an graphic design iyo hadii noqoto web design ba ganacsi ka maarmi karaya ganacsi kasta in si uu guuleysto wuxuu u baahan yahay inuu inta helo marka hadii aad xirfada leedahay ana taqaanid ma kaliya inaad xirfada leedahay laakiin inaad dad la dhaqan fiican leedahay inaad network fiican dhisatid waxyaabaha iyagana ku caawinay weeyaan in Allah musta'an ku dhisay teamkayga waxa jira in igala shaqeeyo logooyinka noo sameeyo Allah musta'an noo design kareeya design website-da waxyaabaha u baahan Allah musta'an la sameeyo Allah musta'an si fiican loo shaqeeyo marka hadii aad xirfada baratid adiguna Allah musta'an waxaad noqonaysaa valuable dadkana waxbaad ku kordhinaysaa adigana naftaada wax ku kordhinaysaa marka xirfad ka hadlayna xirfad markastood xirfad yeelatid xirfada xataa laftigayga hadii aanad ku shaqeyn waxay noqonaysaa wax ku anfaca oo valuable ku oo adigii sara ku qaaday xataa hadii aanad dadka la kaybin waxay noqonaysaa wax adigii ku caawiya oo ku dhisa xirfada kale ee iyadna muhiimka ay tahay inaad xilligan aad isku hubeysid ama online ku iibin karaysid waxa weeye inaad baratid sida web design ka loo sameeyo web design ka muuqaalo horan kaga soo hadlay baa jira waad baran karaysaa web design ka waagii hore waxay ahayd inaad coding ka baratid inaad HTML baratid inaad Java baratid inaad baratid script ka loo qoro website ka laakiin maanta xilligan aynu joogno waxa jira website fudeydiyay oo fudeyd ka dhigay sidii website loo sameeyo haday noqoto Wix haday noqoto Squarespace haday noqoto Shopify hadii aad xirfadahan baratid mid kale xirfadahan adiga valuable bay ku noqonayaan dadka sii bari kartaa course baad ka sameyn karaysaa koorsadaada Allah musta'an waxaad gelin karaysaa Skillshare iyo Udemy muuqaalka waxa sponsor gareeyay Skillshare إن شاء الله دليل حاجة دباين كهل دونا سكيل شري حتى ويب ديزاينكم مهم ويا ما أنت باهي بدن أيا كتيرتا إن الجناحسية وبحان أونلاين إن الجناحسية تجان أونلاين ويكبحان كلية إن النقدان أوفلاين النقدان واجي هو روح هيد جناحسي إنه ده أنت صو شغالة هورو لكن ما أنت ولا سيمبلفاي كري أدونك ولا سيمبلفاي كرينا يا تذكر وحي آمنيان أو آمنات دي سروق عادي أنت كده مسوي 2020 مركو كورونا لوك لون كده عاي إن تذكر أونلاين ستوري ساي سميست marka haday baratid sida design-ka loo sameeyo oo web design-ka aad baratid imka teamkayga mid baa jiray la shaqeeya aniga waa caadi ahaan waa shaqadayda inaan web design sameeyo inaan Shopify store sameeyo waa waxyaabahan sameeyo laakiin maadaama waqtigaygu kooban yahay oo waxyaabo badan qabto teamkayga waxa jira qof igala shaqeeya I think الله مستعان لعق في عنا وقاتها الله مستعان وبسيطة أو design كرينيو maybe لعق في عن بقاتها هدي أد حرفة بريتد أديكون واحد يكون لغة حرفة ذالي بلا أو نفط هذا ينولش هذا وحكي بديشة مقال كم واحد سبوسر جري Skillshare وبلاتفورم بيكون شران بقلال يكمنان كل أو كورسوينا أو حرفة إنه هذا كهذا هذا نقطة graphic design هذا نقطة video editing هذا نقطة web design هذا نقطة all the حرفة صورنا وميلاد حرفة جاي أتكون ديسكريسيد كم كقفة يجوه الرجال لينك جرعة وحيسينا يعني صدق عشاء أفرية مركز سكوت إن شاء الله دي إن تكمل نقطة حرفة سناد بريتي قيت طلبات دوبها أنت هو سياد الله مستعان أونلاين كالعقد يقول سمي سوحويا إن physical productivity وإحنا حسوستا لبض كوني سجالي طبعا لبض كوني ستيتون لبض كوني لاتن مركان شوقي وطن كيجي وحسمين شري الله مستعان إن أونلاين كحكوي بيه سين أونلاين كحكوي بيه مركي يجوه ريسو حن ديسكفري كسميه بعد فيسبوك ماركت بليس تطبع شري أنو شقيني أو تدك جوري أو تدك وحيابه وحينية مركب حسمين شري فردية ذا رادين شري هردوين كان رادين شري فريتشيس كالله مستعان قبوتياشن أي سوق رادين شري مركب وحنا يجي شري فيسبوك ماركت بليس واحد شري ضد lacag yar oo jaban ku iibinaya dadka baan ka soo iibsan jiray dan Allahumma musta'an waan galin oo yaraha been jiray sawiraan oo qurux badan ma ka qaadi jiray dan Facebook marketplace kan dib ku celin jiray dan waxaan siin jiray lacagtii laba jeer jibaarkeed maybe dhici jirtay Allahumma musta'an inay mararka qaar kood iga soo gasho 500 mararka qaar kood iga soo gasho 700 mararka qaar kood 900 iyo 1000 euro ay iga soo gali jirtay xaqii waxay ii noqotay side hustle aad u fiican marka hadii aad Europe joogtid ama wadankeena joogtiin kan soo aanan hubin inuu Afrika ka shaqeeyo Facebook marketplace laakiin hadii aad Europe iyo Mareykan iyo wadamada uu Facebook marketplace ka shaqeeyo aad joogtid waxaad sameyn karaysaa inaad furniture-rada soo qaadid dib u iibsid online ka guul xiibisid waxaad kala sameyn karaysaa waxa jirta Allah musta'an alaabo badan oo garage-ka ku jira inaad alaabadaha aad Facebook marketplace ka guul xiibisid ama eBay midkii Allah musta'an jira taasina waa mid aad sameyn karaysaa qaabka labaad physical product iibin karaysid waxa weeyaan inaad dropshipping samaysid dropshipping industry maanta markuu TikTok yimiday waxay game changer ku sameysay dhamaan waagii hore waxay ahayd inaad dropshipping samaysid inaad Allah musta'an Facebook aad lacag ku bixisid Allah musta'an ama aad galisid laakiin hadda intuu TikTok soo baxay game changer buu ku sameeyay dhamaan waxaan Allah musta'an ku bixinaa course-kayga faca koreya ay ardayda ku bartaan sidii aad dropshipping u sameyn lahayd haday noqoto dropshipping iyo haday noqoto print on demand labada business baa laba business oo iyagana online ka lacag kaga sameyn karaysid hadda course-kayga waxaan Allah musta'an ku sameeyay discount 100%
اللهم استعان maalmihii ugu dambeeyay lagu jira hadii aad leedahay wad kamid noqon kartaa oo waxaad ganacsiga wad bilaabi kartaa you can be one of them insha Allah wad ka faa'iideysan kartaa qaabka kale اللهم استعان online ka aad lacag kaga sameyn kartaa waxa weeyaan attention اللهم استعان soo qabatid attention kaas wuxuu noqonayaa YouTube channel kan oo kale YouTube markaan bilaabayay isma lahayn source of income fiican buu ku noqonayaa laakiin imika bishii اللهم استعان lacag fiican soo turaa ilaa kun meelahaas buu sameeyaa marka YouTube ku isna waa ganacsi fiican oo اللهم استعان sameyn karsid adigoo dadkiina wax ku kordhinaya adigana اللهم استعان wax fiican ay ku noqonaysaa marka YouTube channel inaad bilowdid oo dadka waxyaabahaas leedahay ku kordhin karaysaa aad sameysidna waa source of income attention qaabka kale اللهم استعان ku sameyn karsid waxa weeye marka free content aad bixisid content badan oo bilaash ah oo dadka noloshooda اللهم استعان wax ku kordhinaya aad bixisid inaad اللهم استعان marka dambe dadka paid content aad ka qaadi karaysid imika channel kan oo kale waxaan اللهم استعان ku soo gudbinaa waxyaabo badan oo free information badan oo free oo اللهم استعان valuable marka taasna maxaa sameeynaa in 1% wax yar oo kamid اللهم استعان in koorsooyin ama free ama content ka bar kamid inaan اللهم استعان ibino marka adiguna taas oo kale waad sameyn karaysaa inaad kortid aqoontaada ama xirfadaada ama skillkaaga muuqaal kaga hadlay muuqaalkayga hore ganacsiga ugu fiican bilaabi karaysid marka aqoontaada iyo skillkaaga waxay ku noqon karaysaa side hustle business fiican bay ku noqon kartaa muuqaalkeena inaas baan ku soo gabagabaynaa waxaan ni rajaynayaa dhamaantiin guul waxaan dhamaantiin ni rajaynayaa gobonimo dhamaantiin waxaan u baahanahay qof ina dhiiri geliya qof ina challenge gareeya qof nagu taageero waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qof ka helin adigu qof noqo haddii aanad adigu qof ka helin adigu naftaada noqo